in ninkeeda oo ay markaasi ahaayeen aroos cusub uu ku nacay xanuunka islamarkaana uu iska furay iyadoo aan hooyo iyo aabe toona u joogin magaalada muqdisho. isbitaalka dhakhtarka wuxuu dhaha marka dadkii ninka ayagoo fadhiyaan oo kale wuxuu dhaha gabadhan wadanka waxba loogama qaban karo haddii aa awoodiin dibadda u qaata. reerka marka hooyadiis aabihiis iyo ehelku way joogeen, asna woo joogay. waxay dhaheen waayo waa isku soo laabanayna. markay guriga yimaadeen waxay dhaheen naag saas naqatay hooyo waxba kuuma taraysee qarashna uma hayside mid fiican ka guursay iska dhaaf. marka isbitaalka anagana ma awoodin xataa qarashka isbitaalka dadaa iga bixiyey inta markaas aan ku jiray. hooyadeen anagana xamaaleysay ma ayna awoodin xataa raashinka isbitaalka lagu keenay dadka diriskaan u soo qaadi jiray khayr laasi. marka isbitaalka 2 bilood ku jiray markii aan ka soo baxanay furitaankaas la keenay ma seexan baabeenkii. waxaan leeyahay nacay sida aan naqday qadarti Ilaahay. wallaahi muruga dareem iyo xanuun iyo kurbo mar dhawaa ka kabsaday niyadeed Ilaahay ku xiray. inaan muxuu ahay saan ii qoran tahay ee igu dhacday xataa taas oo igu sameeyeen qadar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل مقال عصب ولاش ورسن عبد الله يوتيوب channel كديجا داون يسيد وكوجولي سنولشة فضلا هذا يقول عصب تها سبسكرايب نوصار هذا هرنا للجوج جرتنا لايك شير كومنت وقف قاعدة وحي فكر كذا وأنا كم هسنتين سيد قروح دبضن عادي لسعتين ومركل مقال عصب ما أنتم حرب إنها نلو داعو مقال القتال قبر سيجي دكا دقاقي دب كداعي قبر داسي gabadhan walaasheena ah waxay noo sheegtay inay saygeeda isqabeen muddo 21 maalmood ama 3 isbuuc ah iyadoo suuqa adeeg ka doonanaysa Siinay ayaa waxa ku dhacday xabadaas ayaana waxay sababtay inay qaarka dambe ka naafowdo. sidaan ognahay dalkeena sidoo u dhacay burburkii dalkeena ama dawlad la'aanta nagu dhacday dadkeena badankood way yaqaanaan weystada oo way la qabsadeen qaar baa ku naf waaya halka qaarna ay ku naafowaan sida walaasheen idinkaga ma hordhacay muuqaalka ila daawada bilow iyo dhamaad. xataa raashinka isbitaalka lagu keenay dadka diriskaan u soo qaadi jiray khayr laasi. marka isbitaalka 2 bilood ku jiray markii aan ka soo baxanay furitaankaas la keenay ma seexan baabeenkii. waxaan leeyahay nacay sida aan naqday qadarti Ilaahay. wallaahi muruga dareem iyo xanuun iyo kurbo mar dhawaa ka kabsaday niyadeed Ilaahay ku xiray. inaan muxuu ahay saan ii qoran tahay ee igu dhacday xataa taas oo igu sameeyeen qadarta ka mid tahan aaminay. gurigan aan hortaaganahay waa guriga magaalada muqdisho ay ka degan tahay dhibane Maryan Muxudiin Maxamuud oo ah gabar muddo 14 sano ah la xanuunsan xabad kaga dhacday dhabarka isla markaana naafeysay qaarkeeda dambe. muuqaalka intaad daawanaysaan waxaad ka bogan doontaan warbixinta Maryan oo dhameystiran. gurigan ayay kula nooshahay reer ay qaraabo yihiin dhibane Maryan Muxudiin oo ah gabar laba meel marka loo dhiga daadeeda qayb ka mid ah ku soo qaadatay xanuun ay sababtay xabad kaga dhacday dhabarka isla markaana naafo ka dhigtay qaarka dambe ee jirkeeda iyadoo markaasi ka soo baxday 7 arooskeeda. waxaa igu dhacay xabad dhabarkayga dhacday aniga aroos ka baxay oo gabar yar ah 21 maalna ninkii isqabna 3 toddobaad noo suuq Siinay adeeg ka doonayo xabadan dhabarkayga dhacday oo wiifto meel ka imaatay la ka Siinay. marka dibkaas markuu igu dhacay isbitaalkiisana la geeyay isbitaalka 2 bilood aan ku jiray. wallaahi caqabado badan iska jiraan qof aan lixaadeed ku soo karin maanta waxay nacdo aan ka tagi karin waxay jeceshaa aan qabsan karin aan ahay kaadina ma ashkar saxarada ma ashkar oo dhaqaalaha wala qof gooni ma dhaqaalays Ilaahay caawiyo ummadda iska la joogo. waaga hore waalidkii walaalay la joogi jiray laakiin dad ehel la jooga mas'uulna ma tago ma tagi kari tunji ay sameeysan waa la keenaa waa qoraa markii aan qoraysa tagana waa la qaadaa kursi kale lagu fariisiyo saan oo kale waa la qubeeyaa. wala 14 sano ka badana umriga kala barkiisa soo qaad. dhibane Maryan ayaa ii sheegtay iyadoo xanuunsan muddo 21 maalmood ah in ninkeeda oo ay markaasi ahaayeen aroos cusub uu ku nacay xanuunka isla markaana uu iska furay iyadoo aan hooyo iyo aabe toona u joogin magaalada muqdisho. isbitaalka dhakhtarka wuxuu dhaha marka dadkii ninka ayagoo fadhiyaan oo kale wuxuu dhaha gabadhan wadanka waxba loogama qaban karo haddii aa awoodiin dibadda u qaata.
reerka marka hooyadiis aabihiis iyo ehelka way joogeen, asna woo joogay. waxay dhaheen waayo waa isku soo laabaneynaa. markay guriga yimaadeen waxay dhaheen naag saas naqatay, hooyo waxba kuuma taraysee qarashna uma hayside mid fiican ka guursa iska dhaaf. markii isbitaalka anagana ma awoodin, xataa qarashka isbitaalka dadaa iga bixiyey inta markaas aan ku jiray. hooyadeen anaga noo xamaalaysay ma ayna awoodin, xataa raashinka isbitaalka lagu keenaa dadka diriskaan soo qaadi jiray kheyr laasi. markii isbitaalka 2 bilood ku jiray, markii aan kasoo baxanay waxaa furitaankaas laga keenay maba seexan baabiinki. waxaan leegu nacay sida aan naqday qadarta Ilaahay. wallaahi muruga dareem iyo xanuun iyo kurbo mar dhawaa ka kabsada niyadeed Ilaahay ku xiray inaan muxuu ahay saan ii qoran tahay ee igu dhacday. xataa taas oo igu sameeyeen qadarta ka mid tahan aaminay. dhibane Maryan oo muddadii xanuunsaneed waxba loogu qaban waayay dalka gudihiisa ayaa loo sheegay in xanuunkeeda wax loogu qaban kara dalka Jarmalka, balse nasiib darro iyada ma awoodo dhaqaale ay ku aado dalka Jarmalka. saad hore usoo daawateen, Maryan ma haysato wax hooy ah oo halkan ayaa hooy u ah, waxayna la nooshahay reere ay markaasi qaraabi yihiin. arrinta yaab kale ayaa waxay tahay Maryan dhibkan marka uu soo gaaray muddo yar kadib in soojkeedii ama ninkeedii uu xanuunkan awgeed uu furay. ummadda Soomaaliyeed waxa ay ka codsatay inay ka caawiyaan sidii ay u heli lahayd caafimaad dibadda ah, oo ay u sheegeen dhaqaatiirta inaan dalka wax loogu qaban karin, isla markaana ay u baahan tahay in dalka dibaddiisa gaar ahaan Jarmalka lagu daweyn kara xanuunkeeda. wallaahi horta Ilaahay aa wax bixiyo, dadkana asaa caawiyo. markii laga soo tago waxaan codsan lahay dadka madaxda dowladda iyo dadka Ilaahay wax siiyo islaamka Soomaali xataa ma dhahay kaligeed inay soo caawiyaan, oo sidii aan meesha aan rabay oo hiigsanay ama la igu sheegin wax laga qaban karo liigeeyo. xagee lagala soo xiriiray hadii loo baahdo lagu caawiyo? waxaa lagala soo xiriiraa furaha 5 87 87. Ismaaciil Bariisa, telefishinka Soomaali Cable, magaalada Muqdisho. I hope inaad ila soo daawateen muuqaalka urkutaalada ah ee walaasheena ay soo bandhigtay. dhibka laguma waaro, qof adduunka farxad iyo hibo loo siiyay caafimaad ma jirto, adduunyaduna waa wareegto. qof maanta caafimaad qaba ayaa biri cudur ku dhici kara, sidoo kale qof maanta nool ayaa biri geeriyoon kara. taasi adduun ayaan u joognaa oo lisma siinin. waxaan ku rajeynayaa caafimaad sariica inuu Ilaahay ku siiyo, lugahaadana aad ku socotid. balse wiilkaagan gabadhan dhibaatada u geystay ka dhaqaaqay xaaskiisa dhib ku dhacay dartiisa, bal maxaa dareemi lahayd walaashaada nin inuu guursado ee asagoo kaa qaba 2 wiig ama 3 wiig wixii doontaba ha ahaatee ee markuu dhib ku dhaco kaaga dhaqaaqo, maxaa dareemi lahayd? wiilkaagan ku kacay falkaas walaashaada in lagu sameeyo miyaad jeclaan lahayd? waa arrin xun sida uu sameeyay seegeeda. hadduu wax u qaba karin inuu cidleeyo ma ahayn. allah caafiyaan leenaha walaasheena. sidoo kale toole waxaan aniga isweydiiyaa muxuu talow dareemi doonaa 14 sano kadib markuu fiidiyogan arko xaaskiisa oo cidleeyay, weliba ku cidleeyay qadarta ku dhacday. tan kale waxaa jiro ragga iyo dumarka markay haasaabayaan, ragga waxay yiraahdaan wax kasta kugu dhaco waan kula qaybsanayaa, dhib iyo dheef waan kula qaybsanaa, xanuunkaaga ma tagi doono, adiga ii cad, adiga ii madow, marwadeedaan tahay, madaxa ii saaran tahay. markuu qadarti yimid, dhibkina yimid iyo xanuunkii, maxaad kaga dhaqaaqday? hadda koor ayaa wuxuu ku maamaahay ama ku haysay fanaan Soomaaliyeed ifka laguma waarayo. wuxuu ku haysay fanaankaasi ruux bukaanka kugu nacay adoo baahan kaa tagaysa ma kuma banaaneen. allah barasho wacana bareedadu waa sidee. marka qof bukaanka kugu nacay sidiisaba dadka waxaa laga bartaa qofka bid'aadanka markii dhib kugu dhaco ama markaa xanuunsato ama markii baahi ku qabato daruuf, markaa baa ogaanaysaa ruuxa dhabarka ku dhigta oo garabkiisa aad ku ooynaysa ama garabkeeda oo markastana kugu taageeraya wanaagaaga iyo garab istaagaada. balse hadda ninkeedii Allah subhanahu wa ta'ala mas'uuliyad dusha ka saaray markii ku dhacday xabada la dhahay dalka wax loogama qaban karo, kuna naafowday wadacad kaga dhaqaaqay. bal waxaan sugeynaa maalinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala luuheeda ku socodsiiyo uu arko muxuu ku jawaabi doonaa. adduunyada sideeda waa wareegto, waana harka labadiisa gelin. haddaa maanta caafimaad qabto ogow garanti laguma siinin forever inaad saas ku caafimaadi doontid.
waxaana walaalaha igu xiran ka codsanayaa qof kasta wixii awoodiisa abaayadan inuu ku taageero ha yaraato sadaqa sideeda yaraan ma gasho walaashaada hadda wax kale u awoodin sheer garee sidoo kalena u duceey inuu Allah subhanahu wa ta'ala caafimaad sariic siiyo aniga waxaan isweydiiyaa markii ragga dib ku dhaco xaaskooda kama dhaqaaqdo maxay ragga qaarkiis uga dhaqaaqaan xaaskooda ama oridooda markuu dib ku dhaco sida tan oo kale waxaan leeyahay taasi ma wanaagsana mas'uuliyad ayaa ka saaran marka la hasaawaysidna waxay dhahdeen badankiin wax kasta oo kula qaybsanaa dhibay dhaawaca balse dib markuu dhaco way ka dhaqaaqaan qaarkood ma aha dhamaantood ragga guud magaca guud iyo dushi way ka siman yihiin balse way kala darajo roon yihiin qaar wanaagsan waa jiraan oo dhibray xaaskooda dhibay dhaaf la wadaaga halka qaar ka dhaqaaqana ay jiraan oo muuqaalkan sida ku aragteen inta muuqaalka xiga ku kulmeena waa aniga oo walaashin warsan Cabdulaahi oo idinkaga tagaysa sida ay nabadgelyo warsan iyo warsan isoo warsan iyo warsan isoo